السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii basasha aad u isticmaasho inaad cuntooyinka ku darsato oo keliya aan kuu sheego in biyaha laga miiro basashu ay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo aan tiro lahayn. majalada la yidhaahdo Life Science Journal ayaa soo bandhigtay 10 faa'iide ugu muhiimsan ee laga helo marka biyaha laga miiro basasha lagu daro wax yar oo malaba kadibna la cabo maalintii 2 jeer. haddaba biyo laga miiray basasha kadibna lagu daray hal qaado oo malab saafi ah kadibna loo cabo sidii sharaabka oo kale maalintii 2 jeer iyo 10 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin ayaynu ku arki doonaa casharkeennan maanta. faa'iidooyinkaas oo kala ah: 1. sharaabka laga miiro basashu wuxuu dawo wanaagsan u yahay xanuunka dhiigkarka, waxaanu habeeyaa sonkorta dhiigga ku jirta, waxaanu u wanaagsan yahay dadka qaba xanuunka sonkorowga. 2. wuxuu ka ilaaliyaa halbowlayaasha dhiigga ee wadnaha taga inay xidhmaan ama ay cidhiidhi galaan, waxaanu ilaa xad ilaaliyaa caafimaad qabka wadnaha, waxaanu wanaajiyaa shaqada iyo socodka dhiigga ee jidhka oo dhan. 3. wuxuu eriyaa ama kaxeeyaa hargabka iyo qufaca, waxaanu hoos u dhigaa cilladaha laga dareemo dhuunta iyo sanka. 4. wuxuu ilaa xad kor u qaadaa difaaca jidhka, waxaanu ka hortagaa xanuuno badan oo qaarkood lagu sheegay kuwo halis ah. 5. wuxuu caloosha ka nadiifiyaa gooryaanka, waxaanu wanaajiyaa caafimaad qabka guud ahaaneed ee caloosha. 6. wuxuu indhaha ka ilaaliyaa caadka ku samaysma indhaha, guud ahaanna wuxuu wanaajiyaa caafimaad qabka iyo aragtida indhaha. 7. wuxuu wanaajiyaa caafimaad qabka maqaarka sare ee jidhka, waxaanu wejiga ka biiyaa finanka yaryar ee kasoo baxa wejiga. 8. wuxuu wanaajiyaa caafimaad qabka neerfayaasha jidhka oo dhan. 9. wuxuu caloosha dawo uga yahay dibirada uu keeno nooc ka mida gaastarigu, waxaanu wanaajiyaa shaqada iyo caafimaad qabka micdhirada. 10. wuxuu wanaajiyaa caafimaad qabka ilkaha iyo afka, jidhkana wuxuu dawo uga yahay noocyada kala duwan ee infekshanka. waana biyaha laga miiro basasha oo lagu daro hal qaado oo malab saafi ah kadibna la cabo maalintii 2 jeer. mahadsanidin.